timirta iyo laydhka iyo markuu isqabsado nacabkuna wuu ka naxaa naseexuna wuu ku farxaa gabiley hore u martay samaynta nidaamyo horumar iyo waxqabad waa ballanqaadka golaha deegaanka degmada Gabiley oo sanadkan rabitaankoodu ahaa hirgelinta mashaariic tiro badan oo lagu salaynayo baahiyaha bulshada korna loogu qaadayo horumarinta magaaladani maanta u jiraban horumarka dawladda hoose degmada Gabiley iyadoo la dareena shacabka oo saameynta ku yeeshay xanuunka COVID-19 waxay gabi ahaanba joojisay mashaariicii ay ku ansixisay miisaaniyadeeda ee lagu horumarinayay magaalada marka laga reebo mashaariicii horumarineed ee qandaraasadoodu ay baxeen waxaana maanta maayirka magaalada Maxamed Aamin Cumar Cabdi ku xigeenkiisa Cabdi Yuusuf Kolle xildhibaanada golaha deegaanka ka xogeeyaha fulinta uqaasha salaadiinta waxgaradka ayaa si wada jir u soo kormeeray mashaariicii horumarineed ee sii socday ee xilligan qaar kamid ay dhamaadeen kuwa kalena ay socdaan oo ay kamid yihiin hirgelinta wadada afartaada ee gudaha magaalada dhirbeerista iftiiminta magaalada xanaanooyinka wadooyinka kala duwan ee gudaha magaalada وينو halbowlo u ah horumarinta iyo fiditaanka magaalada waana wado loogu talagalay inay u adeegto bulshada u socdaalaya saylada xoolaha ugu waxa halkaas ka hadlay odayaasha waxgaradka salaadiinta oo bogaadiyo horumarka dawladda oo si degmada Gabiley ay ku talaabsatay waxana ay yiraahdeen waxaanu joognaa wadadii saylada xoolaha oo shaqo culus ka socoto oo ay ku jiraan cagaftii rugleydii shaqaalihii injineeradii sidaa darteed waxaanu aad iyo aad u bogaadinaynaa golaha deegaanka oo hogaaminayo maayirku hawsha ay qabteen oo ah hawl muuqata sanadkan aan ku jirro gudihiisa iyagoo magaaladii ka sameeyey mashaariic fara badan laamadii weynada halbowlaha ahayd sariibadii qaybta bariga xanaanooyinkii halkana ay tahay mashruucii ugu weynaa saylada xoolaha oo wadadeediina taa maanta socota ay tahay aad iyo aad baan u bogaadinaynaa golaha deegaanka oo hogaaminayo maayir Maxamed Aamin oo halkaa tacab fara badan maanta horteed maanaan araga waxaanu moodaynaa marka hore casaanka jiingadaha iskuulaanu moodi jirnay markaanu halkaa ka aragno dadii waxay noqotay laamaygii dee Hargeysa iyo isku xidhayay Gabiley oo kale ayay noqotay waxaasi waa tacabka waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaayo u bogaadinaynaa golaha deegaanka ee uu hogaaminayo gudoomiye maayir Maxamed Aamin Cumar Cabdi waa golihii waxqabadkaan oran karnaa ma ogtahay kolkaan eegno habeenkii wadada weyne afartaada ee magaalada marta timirta iyo laydhka iyo markuu isqabsado caasimada kuma yaalo laydh magaalo caynka jid weyn oo caynkaasi waxa weeyaan magaalooyinkii waaweynaa adduunkaad moodaa ma ogtahay hawsha wadada saylada iyo isku xidha gobolka waa loo doortay waxqabadka in maaragtay ay qabtaan golaha deegaanka Gabiley ee maayirka iyo maayirka xigeenku hogaaminayaan waxay wax ku qabteen isu duubnida weey haddaana isku duubnayn oo nin ka soo horjeedo waxba ma ay qabteen ma tirin karno inta maaragtay aan wali la furin ee wadada aan joognaa ka tahay inta dhamaatay ama wadaha noqotay magaalada bartankeega marta oo gobolka bartankiisa marta ama xanaanooyin meesha doontaba ha ahaatee wax la tirin karo maaha maalinta la furayo ayaa bini'aadanku arki doonaa aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa wax lagu farxa weeyaan wixii waxqabad ee la arko nacabkuna wuu ka naxaa naseexuna wuu ku farxaa aad iyo aad baan ugu farxaynaa waxaan taagannahay saarey oo dariiq cusub oo isku xidhaya magaalada Gabiley iyo meel 1 kiiloomitir u jirta oo loo asteeyay golaha deegaanku ay asteeyeen xoolaha in lagu ariyo xoolaha lagu kala iibsado arintaasi aad iyo aad waxaanu meeshaas ku soo aragnay wax aad iyo aad u qiimo badan Gabiley hore u martay soo kuma ku baraarugay mashaariicda laakiin waxaan aaminsanahay dhowr arrimood oo ay ka mid tahay dariiqa weyn ee laamida ee magaalada dhexmara kani
MCSyo waxa weeyaan waxqabadaadu muuqda oo lagu ammaani karo waajibkiina ay ka soo baxeen baan aaminsanahay ammaantu dadka iskama qabato waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa waanu ku ammaanaynaa golaha deegaanka Gabiley ee hogaaminayo gudoomiyaha Maxamed Amiin Cumar Cabdi waxaan aaminsanahay Gabiley haddii ay 1 year ama 2 year 2 years damba sida ku sii socoto inay noqon doonto meelaha loo soo dalxiis tago sokor waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaanada golaha deegaanka xogayaha fulinta Mustafa Xaaji Cabsiye maayir ku-xigeenka degmada iyo maayirka magaalada Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo sheegay inay fulinayaan ballanqaadkoodii waxaana ay yiraahdeen waxa ka fikiraynaa maaha bari iyo sahan dambe maaha 100 sano soo socda degmada Gabiley ama gobolka Gabiley qaabka uu eegaanayo caasimadu ayuu kale golaha deegaanku uu qof walba uu waxa weeye arrinkiisa uu soo dhigay marka maayirku nagu hogaaminaya wixii talaaya markaanu fadhiisano aanu soo dhigno aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maanta bulshadu meelaha ay ka bugto dhan baa la doonayaa inaanu bogsiino hadday tahay caafimaadkii hadday tahay waxbarashadii biyihii laftooda wixii kale bulshada sida waxa weeye silida iyo xoolaha dhinac walba waxqabadkan golaha deegaanku maanta ka muuqata magaalada waa mid horumar aad iyo aad u baaxad weyn wadanku gobolka Gabiley ka socda runtii maragna ummaddu way ka tahay waxa weeyaan halkan maalintii ay wadada la jeexayay ee lagu waday sariimada jeexjeexadaasi baa meesha yaalay runtii macquul ma ahayn waxaan lugt baan ku maray dhulka markii sarfeenka la qaaday amba wadadan amba dhulkan halka ugu dhow ee ugu afiya gacana ayaan u garano halkan ahayd ma sha Allah maanta la wataa dilaamida kullu wadadan markii la sahaminayay dadkii maarka la maayir meesha way jeexjeexiyo waa inoo suuro galayso ayaan kamid ahaa meel kale anagno laakiin samaanta waxa la aqoonaya in isugu maalintii aadiga agagsana waan ku ambalinayaa maayirka iyo xogayaaba waxa horta waxa yar wanaagsan haddii golayaasha isku ruba bedelayo marka gobolka wax laga qabto ee gobolka wax laga qaban waayo haddii ay baarlamaanku soo dhigi lahaayeen in la isku ruba bedelayo xildhibaan maayirada iyo golaha kulli aniga kan tagi lahaa garanayna aniga maayirka loo hogaaminayo oo wax badan ka qaban lahayn lillahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh ilaahay idin garasiiyay wixii la idin doortay ee dadweynaha reer Gabiley idin doorteen ina 100% fulisaan isagoo idinku hogaaminaya maayirka iyo maayir xigeenka iyo xoghayaha oo magaalada bilicdeedii iyo wadooyinkeedii waaweynaa oo dhan hagaajiseen imikana abalaadintii iyo wadadii seylada xoolaha wadaan habeenayto qaar la soo hadlay waxay ugu yiraahdeen laamid dhexdeeda maray waan meeshaan maray balaa Gabiley ma wajigjiga ya marka leerarkii iyo waxa arkeen waxay ugu yiraahdeen meeshaan maray malaa wajigjiga Gabiley maaha ilaahay baa mahad leh ilaahay idin garasiiyay wixii la idin igmaday ee la idin doortay imikana waxaan idinku sii guubaabineynaa in halka ka sii wadaan kulay waa howlqabadkayagii aanu dawladda hoose iyo golaha deegaankuba ay qabanayeen waana wixii loo doortay laa shukri cala alwaajib marka waxa weeyaan wixii aanu ummadda loo doortay weeyi maayarkayguna wuxuu nagu hogaaminayaa dee waa waxqabadkii marka waxa weeyaan golahan deegaanku oo golihii waxqabadka ayaan odhan lahaa ee ku suntanaa waxqabadka iminka waxa dhowr iyo 10 mashruuc oon xadhigga laga jarin ayaa noo diyaara kan ugu dambeeyay waa kaa wadada saylada oo aanu leenahay sayladii magaalada dhexdeeda ee laga cabanayay ha lagaga bogsado oo ha lagaga soo guuro oo dadkii hadlayay lahaa suuqa ha laga saaro xoolaha ay maanta laga saaro oo caleentii iyo calafkii iyo harkiiba loo sameeyey waxaanu leenahay waa waxqabadkii ay dawladda hoose iyo dhaqaalihii iyo cashuurtii aanu idinka qaadanay baanu idinku qabananaa halkan aynu taagannahay sidaa laga wada dhawaajiyey oo wadadii sayladda maanta waxaa noo muuqata in magaaladii Gabiley sidii aanu doonaynay muddooyin markaanu meelaha ka hadlayna dadku waxay moodi jireen inaanu iska hadlayno dhalanteed ku hadlayno kumaanaan hadlayno kolleeyihii wax aragti noo muuqatay baa ahayd maantana hawadeedu waxay noo sheegaysaa in magaalada Gabiley sidii aanu doonaynay qorsheegii ku dhacay hogaamintu kama soo hadho lacagtu macna male waxa ka wanaagsan hogaaminta haddii hogaamintu toosnaato wax walba ay toosnaanayaan haddii hogaamintu qalloocatana wax walba ay qalloocanayan lacag walba haddaad hayso aanad hogaaminteeda haynin meel bay kala dhacaysaa jarbaad kala dhacaysaa sida meelo badan baa laga carabka laga dhufanaya ka dhacday Gabiley muddo dhow sayladan way iman doontaa sayladaasi maalinta halka timaadeen neefka hore lagu iibiyo
baloodhada intaa inoo dhexeeya magaalada iyo saylada u dhaxaysa waxay noqon doontaa baloodhada waa la sii kala carbuuran doonaa haddii aan la yidhaahdo sidaan ku rajo weynahay 2 sano ama 3 sano ka bacdina halkaa maanta hareeraheena bannaani guryaha ka dhismi doona taasi waxay noqon doontaa waa hawl inoo soo socota alxamdulilah baa lehna ilaahay baa nagu simay dee ilaahay baana dadka dooro cuqaasha gobolka ee wanaagsanna dee ilaahay baa noo dooray hoggaanka maanta magaalada hogaaminaya Gabileyna dee ilaahay baa u dooray oo ilaahay isaga yaqaan halka wanaagsan maanta waxaanu kormeer ku marinay mashaariicaha aanu gacanta ku hayno ka dawlad hoos ahaan oo ay ka mid tahay mashruucan aynu hadda joogno oo sayladii xoolaha aynu magaalada ka saarnay sayladu way dhameystirantay muddo bil hadda laga joogo hadda waxa gacanta aanu ku haynaa wadadii isku xidhaysay magaalada iyo saylada oo maanta shaqadii ugu weydeen ka socoto muddo dhowna waxaanu rajaynaynaa in saylada la soo raro waxa ka warqabteen meesha xoolaha lagu iibinayaa inaan ahayn meel ku haboon taasina waa ta keentay inaanu sayladan u sahamino oo noqon doonto saylad mustaqbal oo 20 sano soo socda insha Allah taala aan ugu talagalay inaan laga fikirin baylah sayladeed ilaahay subhanahu wa ta'ala de masiibada adduunyada iyo dalkeenaba haysata inaga nabadgeliyo COVID-19 ka sida muuqatay ilaahay uu inoo sakhray ilaahayna waxa rajaynaa insha Allah taala inta jirtana inuu inaga qaado muddadii COVID ku joogay mashaariicaha cusub waanu yaraha kinay maadaama inaan garan kareyn xaaladdu nooceed noqon doonto laakiin waxaanu gacanta ku hayno mashaariicihii aanu marka horeba si qorsheynay bilowga ahaa gacanta lagu hayay ilaa iyo 9 mashruuc baa imika aanu gacanta ku haynaa oo guud ahaan ka kala socdo gobolka magaalada dhexdeeda wadadan aynu joognay iyo saylada kamid ah waxa kamid ah sariimadii xaafadda wadajir aanu u sameeyno iyaduna dhamaatay waxa kamid ah xanaanadii hooyadii iyo dhalaanka xaafadda wadajir aanu u sameeynay waxa kamid ah ballaarin iyo dayactir lagu sameeyay iyo kordhinba dawladda hoose xarunta waxa kamid ah baankii dhiiga oo aan ku kordhinay dhakhtarka weyn waxa kamid ah shaqooyin aad u baaxad loo ka socdo wadooyinka hadday noqoto wadada ballaaran ee 2 kiiloomitir ka dhignay ee laydhinta laydhka iyo timirta iyo biyo mareenkiiba runtii ay ka wada socdaan iyo 5 wado oo kale oo aanu ku sameynano iftiimin oo iyagana ay tii u dambeysay oo wadada dawladda hoose ay bika gacanta lagu hayo waxa kamid ah xanaanada aanu wajaale ka dhisanay oo xanaanadii labaad ahayd oo iyaduna dhamaatay waxa kamid ah ballaadhin aanu ku sameynano xanaanada hooyada iyo dhalaanka ee geed ballaad iyo iskuulka dugsiga hoose dhexe geed ballaad oo iyaguna shaqadoodu socoto waxa kamid ah xanaanada hooyada iyo dhalaanka allay badaynu qaybtii dhalmada ku darano waxa kamid ah agabar oo xanaanada hooyada iyo dhalaanka aanu dayr iyadana u sameynanay waxa soo shaqooyin waa shaqooyinka dawladda hoose Gabiley ay ka wado gobolka oo u shaqeyso gobol ahaan ee aanu shaqeyn degmo ahaan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa inuu ka dhigo mashaariic ay ummaddu anfacdo badankoodana waxaan rajaynayaa muddo kooban inaanu ku furno oo ay bilaamaan waxaan aad iyo aad halkan ugu mahad celinayaa runtii cuqaasha oo garab annaga noo ah runtii yalla xaaji telefishinka qaranka Gabiley